بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مقعيق وحسن روبلا قلعيل ومدحدة هيئة قلمة قرن كسجن هذا مقالة عسبولي قابت أن كسجن هاي ومقالة عسبولي وقبلها عسبولي هوست دقيمة إير قبلها عسبولي وهذا أنا جوجنو إسكول كيس واحد كسجن بركة عياش قلبيت قبل كستي كسو بركة عي صدق الدقمة iyaga kala kooban yihiin cadeyti cundufo iyo garbaciise halkan maanta waxaan u joognaa oo soo gaarsiinay deeq raashin ah oo ay soo direen qurbo joogteena reer Mareykan ururka magaciisa la yaaho Ciisa USI community deeqda ay soo direen oo soo egmadeen inay gaarsiiso halkaas hay'adda gurmad qaran oo maanta afkayga hadda aan ku hadlaayo marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baliyanayaa oo bogaadinayaa walaalahayga qurbo joogta reer Mareykan soo xasuustay walaalahooga dhiban ee u ragaaday dagaal galbeed city ka socdo ee ku sugan goobtan iskoolka ah ee aad maaragtaas ugu dayacnaa ay deeqda u soo diray kulli deeqdaasna qaybteedii koobaad waxaan hadda ku bixinayno ay walaalahay soo direen qaybteeda labaad waxaan geyn doonaa magaalada Afdam hadda maaragtay casbiil aan ku sugannahay waxaan ka diiwaan gelinay 250 qoys oo ah barakacayaasha ka soo barakacay galbeedka gobolka city saddex magaalaba u dhan deeqdaas waxaan ku soo iibinay cunno oo waxa ugu baahi xuna hadda dadka halkan maaragtaasay ku sugan maaragtaasay aanu qaybinayno waxay ka koobantahay sokor iyo bariis iyo saliid waad arki doontaan sawirkana waa taxaga maaragtaasay lagu bixinayo waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalahayga deeqda soo diray ee u soo diray walaalahood waad mahadsantihiin waa idin hambalyeynaa kullay waajibkana waa waajib maanta in saaran handaatii qurbo joogta ka soo jeeday galbeedka gobolka city walaalihiin baahida maanta aad aragteen maarta u soo horteen jeebkiinana kulli baahidooda maanta ina si wadi marjeynina kulli maanta waxaan joogno waa maalin axad ah taariikhduna waxa ay tahay bishii 9aad 26 2022 deeqda qaybtii koobaad waxaan haddana ka hawl galayno ay walaalaha u soo direen qurbo joogta reer Mareykan ee ururka USI community waxaan qaybta labaadna gaarsiin doonaa magaalada Casbuli annaguna haddaan nahay hay'adda gurmad qaran qaybta labaadna waxaan gaarsiin doonaa Afdam haddaan annaguna nahay xubnaha gurmad qaran ka hawlgala jooga hadda galbeedka gobolka city waa idin mahad celinaynaa hawshiin maaragtaasay sidii waajibka iyaga ahaa ayaan u gudanay waanad arki doontiin waad mahadsantihiin haddana waxaan ku baxay walaalahayga kale bismillaahir rahmaanir rahiim waa Cabdilaahi Muuse Barraweeye oo kana tirsan hay'adda gurmad qaran xubnaheega ah hadda waxaan joognaa oo taaganahay magaalada Casbuli waxaan meeshan u taaganahay hadda hay'adda walaalaheena ma garanaysaa reer Mareykan ay u soo tabaruceen walaalahooda ay u soo direen USAID community deeqdaas oo ka kooban bariis saliid iyo sukor ayaan hadda dadka gaarsiinaynaa sawirkii oo qurux badan iyo muuqaalana waa arki doontaan aad iyo aad waxaan hadda aan nahay anagoo ku hadlayna magaca ururka hay'adda gurmad qaran aad baan uga mahad celinaynaa walaalaheen inay hawshaana halka ka sii wadaan dadkoogana ay wax u taraan sida imikaba talaabada sii kordhiyaan siina wanaajiyaan aad baan ni salaamaynaa aad baan ugu deyrsanay wixii aad dadkiina ku soo tabarucdeen u soo gargaarteen waqtiga labaadna waxay noqon doontaa insha Allah tanta ku xigtina waa Afdam anoo hadalkayga halka ku soo koobaya aad yani igu mahadnaqayna بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سلاد لله waxaan salaamayaa ururka maxaa ku raayay qurbo joogta soo diray raashinka annagoo ku sugan raashinka ay soo gaarsiiyeen ururka qurbo joogta Mareykanka community Ciisa waa ka raashinkii aan halka waakas u soo gaaray waxa dhibta halka ka taaganato annagoo aan qiyaasi karno maaha waxaan uga mahad celinayaa ururka wax soo diray walaalahood kala qayb qaatay deeqda raashinka waxa weeye oo aan ku soo koobayaa qaybtii koobaad weeye qaybta labaadna Casbil bay ku bixi doontaa hadduu Alla yiraaho Afdam bay ku bixi doontaa hadduu Alla yiraaho waan salaamay inaan nin kastaba ku daydo bana yaan halkan uga baaq dirayaa insha Allah waan salaam oo joogayay ima kala soo barakacnay
oo ma ilaahay jirtay cadow naga soo barakiciyay oo meesha qabalaha in Casbuli annagoo joogna walaalahayo na soo tabeen na soo xasuusteen deeqna soo gaarsiiyeen mahad Allah nidhi in iyagana Allah noo adkeeyo Allah noo gargaara in deeqdiina wayna deeqsiiyeen si fiican bay noo siiyeen sida noo siiyeen Allah u siiya dawladdana waxaan ka codsanaynaa inayna soo xasuusatay si fiican noo garab qabatay si fiican noo garab gasho dhulka iyagana noo rido waan bislaano barakacnaa inay barakacnaga ay noo gurmato ay waddanka iyaga noo rido dal kale inama qaato dawl kale inama deeqo inaad garab qabatiin noo gurmatiin baan niga rabnaa niga codsanaynaa deeqdana waa niga guddoonnay معاه عمر راجع وحنا كميدا هاي بركة عياشة كسر بركة عي مجالة عندوفا إمي كنا وحنا كسرنا هاي مجالة عسبلي وإن سوق قاعد داقدي أي ناس تبيين أورور كجورمة قرن قرب الشوكته ولا لا هي قرب الشوكته مرايكن ككونول داقدي أي ناس سوق قاعد أي ناس صادرين وإن سوق قاعد سفي عم بانو قدوني ما حدنا وانو علينا وانو ما حدنا قينا ولا لا هي قلنا صح حسوستي كحنوستي باهدا أن عدو قلنا صوب بركعيه أن شوقنا يمي كان نجوا بيدات كيجي يا برادة يدي كساك عن كنا المجال عسبلي وأنا تكون مهنسن وتكون مهتسنتهم من عبدية أو بركة عياش عند فوق جرملي عريت الصدح ذا مجالبة أنا كوكا كوبان وحان سوق علي راشين بدن إيال كيجا عيسى يقرب جوكته وليبه برامس وليبه محيا هذا مرايكن رأي مرايكن بنا سوق علي راشين بينو كهرين سفي عن بينو قاري صدح دي مجال صبرك على وقت كوبان ما وندنا هاي إسكولة عسبري بنجوجنا إما كان الدولة الصومالية وحنا كربنا هذا قلنا دول دقي إيه هايست إن صبرك إيه برد يبيت كي نقصوك إيه إن وضع عليك إن قبل سهران نقول عشار بنكو عصنا ما عيوا فاطمة حسن كيلوين waxaan ka nimidnay wadanka dagaaladu ay ka socdaan iyo colaadu ka joogaan jiida anfartii Soomaalida u dhaxaysan ka nimid dagaalo culus iyo dhibaato badan ma soo marnay marka waxaan leenahay insha Allah Ilaahay ba horta mahad iskale Ilaahay ba mahad iskale kolka warayso talabaad dhalinyartayada qurba joogtay dhalinyartayada dalka iyo raashinada ay nasiyeen ma ku mahadinaynaa Ilaahay baan mahad u celinaynaa insha Allah intan iyo in ka badan inay noo soo diraan ma ka rajaynaynaa